waxaa maalmihii ugu dambeysay soo badanaya afduubka iyo dilalka loo geysanayo Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa aayaha channel ku soo dhawaada gacmo furan. haddaad iminkan ugu soo biirtay fadlan subscribe inoo saar ku soo dhawow channelkan ood kaga bogo doontid warbixino kala duwan. haddii aad ka mid tahay asxaabtii hore inoola joogana waad ku mahadsan tahay la joogistaada. waxaa maalmihii ugu dambeysay soo badanaya afduubka iyo dilalka loo geysanayo Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya. booliska magaalada Mombasa ee gobol xeebeedka dalka Kenya ayaa baaraya shabakad dadka tahriibisa oo la rumaysan yahay inay ka dambeeyeen dilkii gabar Soomaaliyeed oo loogu geystay gudaha magaaladaasi. gabadhan geeriyootay Allah u naxariistay ayaa waxa lagu magacaabayay Najma Cabdullaahi. daadeedu waxay ahayd 19 sano waxayna ka soo jeedaa magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. jimcihii la soo dhaafay ayaa laga helay meydkeeda kadib toddobaad oo la weysnaa gabadhaasi halka ay jaan iyo cirib ay dhigtay. ka hor inta aan la weynin kaliya toddobaad ayay Najma ku sugnayd magaalada Mombasa iyada oo ay la nooleed walaasheed, waxaana la rumaysan yahay in halkaasi laga afduubtay dhibaatadan ay ugu bilaabatay. Salma Ahmed oo ah agaasima ku-xigeenka ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee lagu magacaabo Haki Africa ee ka dhisan dalka Kenya ayaa warbaahinta u sheegtay in ururkoodu uu soo gaaray cabashooyin fara badan oo la xiriira in dhalinyaro fara badan la tahriibinayo. waxay tiri waxayna soo gaaray cabashooyin ah in dad loo tahriibinayo dalal kala duwan sida Soomaaliya, Suuriya iyo Yemen iyagoo aanan ogeynin. tusaale ahaan waxaa jira 4 haween oo inala soo gaarsiiyay, sidoo kalena loo ballan qaaday in shaqooyin dibadda la geynayo sida dalka Sacuudi Carabiya iyo wadamada kale ee Khaliijka. booliska ayaa ilaa iyo haatan waxay xireen 2 qofood oo looga shakisan yahay markii ugu dambeysay in ay la kulmeen gabadha geeriyootay ee Najma. sida ay sheegayaan baariyaasha xog laga helay taleefanka mid ka mid ah dadka kiiskani looga shakisan yahay ayaa gacan ka geystay baadigoobka loogu guda jiro shabakadan iyadoo dhibaatada ku haysa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya. qofka laga shakisan yahay ayaa la sheegay in ay u baxsatay magaalada Eldoret isla maalinkii la waayay Najma, iyadoo la sheegay in ay dhuumaaleysi ku jirtay kadib markii ay ka warheshay in iyadu baariyaashu ay ku raad joogaan ayna bacsanayaan. markii ugu dambeysay waxaa lagu qabtay magaalada Kangundo xilli ay isku dayeysay in ay u sii baxsato ama ay u tallaabto magaalada Nairobi oo ay Soomaalidu ay ku badan tahay. maalin kadib markii xaafadda Dongo Kundu lagu magacaabo laga helay Najma oo miir daboolan. Najma ayaa markii dambe isbitaal ku yaal magaaladaasi ugu geeriyootay dhaawacyo ka soo gaaray sida madaxa, wejiga iyo dhiigbax fara badan oo dhanka gudaha ah u tallaabay. Ifraax Cabdullaahi oo ah Najma walaasheed ayaa sheegtay in la waayay xilli fiida baarihii saacadda geeska Afrikada Bari markii ay ahayd 7:20 daqiiqo taleefankeeduna uu dansanaa. weli ma cadda halka lagu hayay Najma muddada 3 maalmood ahayd ee la weysnaa, balse goobjooge ayaa booliska magaalada Mombasa kala shaqeynaya in la soo helo dadkii ka dambeeyay afduubka iyo dilka loo geystay gabadha yar ee Najma. Allah u naxariistay Najma Cabdullaahi macallin oo ay ka mid ahayd ardaydii sanadkan ka baxay dugsiga sare ayaa ugu dambeyn meydkeeda oo ay ka muuqdaan dhaawacyo kala duwan laga helay deegaanka Bonjo ee magaalo xeebeedka Mombasa ee dalka Kenya. ilaa iyo hadda waxaa gacan lagu soo dhigay 1 qof oo dumar ah oo looga shakisan yahay in dilka gabadhaasi ay ka dambeysay. Xasan Bashiir oo ka mid ahaa ehelada gabadhaas oo la hadlayay warbaahinta ayaa u sheegay in gabadha markii hore la soo helay iyadoo dhaawac ah kadibna ay ka muuqdeen muuqaalo aad u xoogan isbitaalkii la geeyana ay ku geeriyootay. waxa uu Xasan Bashiir raaciyay in ay dhaawacyadu kaga yaaleen labada dhinac ee wejiga iyo ilkaha hore iyo sidoo kale dhanka kilyaha ayuu yiri Xasan. xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo ka hadlayay afduubka loo geystay gabadhan iyo dhibaatooyinka faraha badan ee lagu hayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Kenya ayaa waxa uu yiri arrimahan oo kale way dhacaan. hadda waxaan war ku haynaa inay 3 gabdhood ay maqan yihiin, 2 gabdhood oo ka soo jeedaan waa hagaag Islii iyo gabar kale oo ka soo jeeda xaafad la yiraahdo Kayole.
asbuucii horena gabar ay oo Soomaaliyeed oo reer Gaarisa iyadana oo deganeed magaalo u dhow magaalada Mombasa oo Marekani ayaa sida loo waayay markii dambana meedkeeda meel loogu tagay iyadoo jirkeeda la jarjaray arrimaha noocan way dhacaan wadankan maadaama bulshada kale ka dhacaan laakiin bulshada Soomaalida hadda waa shay nagu cusub waana shay hadda walac badan la geliyay labada bari hadda aan soo dhaafnay ilaahay waxaan baryaynaa inaan horta aan gabdhaheena ay si nabad ay ku soo waa hagaag codka xildhibaanka ayaa ugu dambeeyay warbixintan intaan ku kulmi doono warbixino kale oo xiga waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo